wixii cusub caalamka jecel tayaduna waa dooqeena magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa lagaga furay meherad casri ah oo iyadu bixinaysa dhammaanba adeegyada kala duwan ee dharka waliba iyagoo tayadoodu ay tahay mid aad u sareysa noocyada kala duwan ee dharka noocyada kala duwan ee kabaha oo waliba aad ku helayso qiimo aad u jaban kaalay oo ka faa'iideyso fursadan cajiibka iyo waliba meheradan cajiibka ee lagu talagalay in lagu faa'iideeyo bulshada Soomaaliland gaar ahaan kuwa ku dhaqan caasimadda Hargeysa iyo nawaaxigeeda aad baan ugu faraxsanahay meheradan xaashi direct oo caawa la furay oo asaasay muwaadin qurba jooga oo maxay dalkiisa ku soo guriyo noqday waxa labaad oo bulshada farxad u ah in dharkan la keenay ahaayeen dharkii maaragtay tayada lahaa muxuu ahaayay ama qurbaha lagu isticmaali jiray ama muxuu ahaayay oo isugu jira levelkii dhalinyarada kii dadka waayeelka kii dadka dhexe yacni qof kasta oo isla halka uu soo galaa uu ka adeegan karo wuxuu rabay uu ka helay weeyaan dhalinyarada waxaan u sheegayaa bahda xaragada jecel meheradan waa meherad isku darsatay tayo dhar bilic leh oo waxaan ku yiraahday qiimaheedu macquul yihiin qiimaha laga siinayaa shaygi wax weeyaan shay qiimaha habboon weeyaan dhalinyarada caasimadda joogtaan ahay waxaan ku xaragada jecel leh waxaan u sheegayaa qof kasta oo xaraga jecel oo dhalinyara hogaaga waxa la wada garanaysa marka dhalinyarada waxaan u sheegayaa inay imaadaan meheradan oo ay ka adeegtaan adiga aniga dhammaantiinba xaashi direct ayaa inoo balana aku timaame meheradu waxay ku taallaa ka soo horjeedka shirkadda Somcable gaar ahaan dhismaha Abkamo dabaqa labaad wixii faahfaahina ee intaasi dheerna fadlan kala xidhiidh lambarada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda